dabcan majaahilnimo ayay ka tahay Soomaalinimo wax iyo mataraysa intaan ka badan waa ku dhigtooda waa ma waxaad ilowday diinteena islaamka ee quruxda badan intaan ka badan afku ma xiran kari mana aamusi kari waxa ku aamusan waa qalad ma waxay ka tahay in aad lacag hesho hada wax ay qabanaysiin wax ay taraysaan waxa ay siin kartiin si walaalayaal kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada haynu jecel lahay halkan waa channelkeena hadii aad ku cusub tahay subscribe saaro sidoo kalena muuqaalkan like saar wuxuu gaari doonaa saaxiibo badan oo wanaagsan sida adiga oo kale waxaan mar walba aan jecel lahay in halkan aan idin kala hadalno isla markaana waxyaabihii ugu dambeeyay social media aan idin la wadaagno dabcan muuqaalkan aan rabo inaan maanta idin soo bandhigo waa muuqaal kale oo dabcan si dabaqaya arinta ay Fartuun Balbalaar ka sheegtay oo guud ahaanba in ay diinta hadii ay heli lahayd $1 ay ka bixi lahayd dad badan oo kamid ah Soomaalida siyaabooyin kala duwan ay kaga hadleen arinta Fartuun Balbalaarka iyada laakiin mar ay hadashay waxay sheegtay Fartuun in qoyskeeda amaba qabaa'ilka ay ka soo jeedo gabi ahaanba waxay u qaban waayeen sidaas aawadeedna ay hadalkaasi uu ka soo yeersiyay ama in ay ku hadaqdo Fartuun waxay sheegtay in family ahaan halkay ka soo jeedo xitaa hadii ay damaceedu uu yahay inay ganacsi sameeyso garab iyo gaashaan ay kaga baahato eelkeeda inay ka weysay qofkana markii uu cabur dareemo isla markaana waxyaabo badan oo ka babato wuxuu doona oo iskaga hadlayo sida ay sheegtay bal muuqaalkan Fartuun Balbalaarka aynu daawano kadib waxaan idin la wadaagi doonaa Sheekh Shantaay oo kamid ah culumadii baraha social media aadka kaga wacyigelisa dadka isticmaala social media Fartuun Balbalaarka maxay leedahay Soomaalinimo wax iyo mataraysa intaan ka badan waa ku dhigtooda waa quraana hada wax ay qabanaysiin wax ay taraysaan waxa ay siin kartiin si walaalayaal intaan ka badan afku ma xiran kari mana aamusi kari waxa ku aamusan waa qalad intaan ka badan afku ma xiran kari ma aamusi kari because wax walba waa iska indhigtiin war Soomaalida waxa arkay qofkii maanta qadahaasto aashan ugu dirtay qofkii qadahaas aasho ugu dirtay Soomaalida qalad ma laha aniga qabiil langaab aha ka dhashtay qabiil ay dhala aha ka dhashtay qabiil baastir baa ka dhashtay maanta hada ka dhalan lahay habiye ama daarood ama dir hada ka dhalan lahay saasal qad qaadalay saas ila alhamdulillah ilaaha ma hada iskal ilaaha ku shukriyo sida aad maqlaysaan Fartuun Balbalaarka waxa ay dabcan aflagaad iyo waliba caay la dul istaagtay ehelka ama qabaa'ilka ay ka soo jeedo taasina dabcan waxa ay ku muujinaysaa inay qayb ka tahay carada ay u qabto halka ay ka dhalatay ama qabiil ahaan Soomaalida halka ay ka soo jeedo Fartuun Balbalaarka in qofka ficiladan uu ku kaco dabcan waxyaabo badan ayaa ku kalifaya hadii dabcan arintan ay si socotona dad badan oo Soomaaliyeed sida wadada ay furtay Fartuun Balbalaarka ay raaci doonaan hadaba Sheekh Shantaay ayaa arintaas waxa uu kaga hadlay si qoto dheer wuxuu sheegay in Fartuun Balbalaarka looga baahan yahay in xiligan tooba ay la timaado isla markaana Ilaahay oo tooba keento waxay ku dhaqaaqday fal adag isla markaana wax aan laga filayn maadaama ay kamid tahay dadka baraha social media caanka ka ayuu leeyahay Fartuun Balbalaarka aynu daawano Sheekh Shantaay oo arrimahaasi ka hadlaya marka Fartuun salaadii iyo soomkii ay lahayd horta way burbureen oo qofku markuu gaaloobo oo diinta islaamka ka baxo acmaal wixii oo hore u sameeyay waxay naqanayaan waxba kama jiraan ay naqanayaan haduu xajiyay haduu soomay haduu salaaday haduu guursaday maxay ninku markuu asagoo haweenay qabo asagoo muslima markuu ridaawo oo murtad oo noqdo gabadhi way ka furmaysaa arrimaha familka marka laga hadlayo inta lagu gudo jiro social media gaar ahaan dadka isticmaala social media ee caanka ah isla markaana rag iyo dumar isu dhaxa ay yihiin khilaaf far badan ayaa soo dhaxgali kara arintu wuxuu ka hadlayaa dabcan Sheekh Shantaay Usman Diamond oo ah sayga u dhaxay Fartuun Balbalaarka sida noloshiisa ay ka yeeshay Fartuun waxa uu sheegay Sheekh Shantaay markuu ka hadlayay in Usman Diamond uu yahay
shakhsi fartuun balbalaarka gacanta ay ugu wacdo marka ay u baahan tahayna keensata marka kalena dabcan iska fogeysa sida uu sheegayo Shantaay oo kamid ah dadka ku jira social media isla markaana wacyigelintu sameeya dadka isticmaala baraha social media ninka Cismaan la leeyahay Cismaan horta waa nin maskiina oo baahan oo maanta wixii rag laga rabay laga waayay gabadhaas furihiisa ida haysa xilligay ida maskaxdeeda ka maagtana way soo noqsataa xilligay buuq iyo maaragtay ay si kale u aragtana ida idisa anigu Shantaay la yiraahdo warka runtiisa galaa xalay Ismaan waa hadalay wuxuu fartuun maxaa laga rabaa Ismaan warka laga ma rabay dabcan majaahilnimo ayay ka tahay ma waxaad ilowday diinteena islaamka ee quruxda badan ma waxay ka tahay in aad lacag hesho ma waxay ka tahay in aad sumcad disho ehelki iyo waliba qabaa'ilka adiga aad ka dhalatay ma waxay ka tahay in magac kale aad ka sii samayso gudaha Soomaalida fartuun balbalaarka ficilkeeda iyo waliba waxyaabaha ay ku dhaqaaqday waxa uu sabab u noqday in gabi ahaan saaxiibo badan ay ku lahayd TikTok-ga, Facebook-ga iyo YouTube-ka ay kala laabtaan subscribe-ki, follow-gi iyo waliba like-gi la siiyay arintaasi waxay noqonaysaa mid dhammaan ay ku maasan yihiin saaxiibada sidaas sameeyay maadaama ay xadgudub ku sameysay diinteena islaamka wana dabcan waxa ay mudan tahay ayaan isleenahay fartuun balbalaarka guud ahaan waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan like saar si uu gaaro saaxiibo badan oo wanaagsan sida adiga oo kale